Trump ayaa ku guuldareystay in uu helo biladda nabadda ee Nobel-ka oo dadaal badan uu ku bixiyay. taa badalkeedana waxaa sanadkan lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay haweeneyda Maria Corina Machado oo ah hogaamiye mucaaradka Venezuela oo taageero badan ka heshay reer galbeedka, iyo xitaa Trump ayaa marar badan bogaadiyay dhaqdhaqaaqyadeeda. dhowr falanqeeyayaal ayaa warbaahinta u sheegay in doorashada Trump in laga leexiyo biladda oo la siiyo Maria ay leedahay macno siyaasadeed oo loo fasiran karo in gudaha Nobel-ka uu si cad u muujiyay jihada ay dabaysha u socoto, taa oo ah taageeridda dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ee ka dhanka dowladaha xukunka adag halkii uu abaalmarin lahaa halganka diblomaasiyadeed ee Trump ee xabad joojinta Gaza. falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya in go'aankan uu si dadban u muujinayo in reer galbeedka ay doonayaan inay xoojiyaan fariinta ah in isbeddelka dimuqraadiyadeed uu ka imaan doono gudaha dalalka ay joogaan hogaamiyayaasha doonaya inay xukunka dheeraystaan sida Venezuela, halka la iska indhatiray kaalinta Trump ee heshiisyada nabadeed ee bariga dhexe. xilliga lagu dhawaaqay biladdan waa waqti ay saqdhexe u tahay Trump oo weli lama gaarin falcelintiisa inuu ku guuldareystay biladda uu sida weyn u doondoonayay, oo xitaa mar la soo wariyay inuu Norway oo xarun u ah guddiga bixiya in uu ugu hanjabay haddii aan la siin biladdan in uu cunaqabatayn saari doono gebi ahaanba iyaga.